wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd wax ay saraakiisha dalka Venezuela ugu yeedheen isku day afgembi fashilmay oo dalkaasi ka dhacay. dowladda Mareykanka wax shaqo kuma laha waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay. waxaa sidaas yidhi xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa Isniintii sheegay inay qabtay 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka. dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilmay ayuu yidhi Maduro. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyay in Mareykanka ay ku lug lahaayeen howlgalka Venezuela. labada muwaadin ee Mareykanka ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Luca Dinman iyo Eric Berry, waxaana labadooda oo hore uga tirsanaa ciidamada gaarka ee Mareykanka lala xiriiriyay shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo fadhigeedu yahay gobolka Florida. labadan sarkaal ee hore ayaa waxaa la qabtay markii ay soo caga dhigteen mid ka mid ah xeebaha dalka Venezuela. hadalkan ka soo yeedhay dowladda Mareykanka ay iskaga difaacayso eedda dowladda Venezuela ayaa yimiday kadib markii uu telefishinka qaranka ee Venezuela soo bandhigay muuqaal lagu muujinayo in muwaadiniin Amerikaan ah ay maleegeen inay xilka ka tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro isla markaana ay geeyaan waddanka Mareykanka. Luca Dinman waxa uu ka mid ahaa 13 qof oo la xidhay dabayaaqadii toddobaadkan. Venezuelana waxay sheegtay inay ahaayeen calooshoodu shaqaystayaal weerarkoodii ubaysnaana la fashiliyay. Mr. Maduro ayaa badanaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu ku eedeeyaa inuu isku dayayo inuu xoog ku soo galo dalkiisa oo uu isagu xilka ka tuuro. Mr. Trump ayaa bilowgii toddobaadkan waxa uu gaashaanka u daruuray in Mareykanku arrintaas ku lug leeyahay. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kalena sheegay in dowladda Mareykanka ay adeegsan doonto wax walba oo ay ku xaqiijinayso in raggaasi Amerikaanka ah ay dib ugu soo laabtaan dalka Mareykanka. Arbacadii ayaa waxaa muuqaal ka soo baxay Mr. Dinman oo ah 34 jir kaas oo u muuqanayay inuu sharaxayay sida looga soo kaleystay in dad u dhashay Venezuela ku tababaro Colombia ka hor inta uusan dib ugu soo laaban Caracas oo uusan la wareegin gacan ku haynta garoonka diyaaradaha si uu u fududeeyo in Mr. Maduro dalka looga saaro. waxaan dalka Venezuela kan gacan siinayay inay dib la wareegaan maamulka dalkooda. Mr. Dinman oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada howlgalka gaarka ee Mareykanka ayaa muuqanayay inuu sidaas leeyahay. Mr. Dinman ayaa sheegay in isaga iyo Eric Berry oo 41 jir ah uu qandaraas ka siiyay Jordan Gonduro oo ah haliyey hore oo militariga Mareykanka kaas oo hogaaminayay shirkadda Mareykanka ee Silver Cup si ay howlgalkan u fuliyaan. Venezuela ayaa sheegtay inay dalban doonto in loo soo dhoofiyo Mr. Gonduro kaas oo qirtay inuu howlgalka ku lug lahaa. sida uu sheegay Mr. Maduro, shirkadda Silver Cup ayaa waxay qandaraas la saxiixatay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido kaas oo ah siyaasi ay Mareykanka iyo dalal badan oo Yurub ay u arkaan hogaamiyaha sharciga ee Venezuela. Trump ayaa ah madaxa hogaamiyaha weerarkan ayuu yiri Mr. Maduro maruu ka hadlayay shir jiraad uu ku qabtay markii la baahiyay muuqaalka Mr. Dinman. Venezuela ayaa sheegtay in raggaasi Mareykanka heli doonaan maxkamadeyn cadaalada. xog kale oo dheeraad ah ku saabsan meesha raggaasi lagu hayo muusan cadaynin, mana uu sheegin in qareen ay arki doonaan raggaasi iyo in kale. wax badan lagama oga cidda ay yihiin Luca Dinman oo 34 jir ah iyo Eric Berry oo 41 jir ah. taliye sare oo ka tirsan militariga Venezuela ayaa sheegay in labada ruux ay xubno ka yihiin ciidamada ammaanka ee Mareykanka. warbaahinta Mareykanka ayaa teebiyay inay yihiin xubno hore uga tirsanaa ciidanka, laakiin arrintan weli si rasmi ah looma xaqiijin. madaxweyne Trump oo talaadadii raggaas wax laga weydiiyay ayaa yiri labada waan ogaan doonaa waanan maqlay arrinkooda. wuxuu intaas ku daray in aysan labadaas qof wax xiriir la lahayn dowladdiisu. hase haddee Jordan Oguru oo hore uga tirsanaa militariga Mareykanka ayaa durba sheegay in dadkaas ay ka mid ahaayeen ciidanka. wakaaladda wararka ee Reuters ayuu ku yidhi way ila shaqeynayeen waa raggayga. Mr. Gonduro oo ah shirkad si gaar ah loo leeyahay oo amniga ka shaqeysa laguna magacaabo Silver Cup USA ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadka diyaarinayay qorshaha afgembiga.
baadhitaan ay dhowaan sameysay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa lagu sheegay in Mr. Ganduru uu ka mid ahaa koox horey militariga uga howlgabtay oo rag ka soo goostay ciidamada Venezuela ku tababaray xero qaxooti oo ku taala Colombia. waxaa lagu soo waramayaa inay hore u qorsheeyeen howlgallo ka baxsan xuduudda oo lagu guuldaraystay. qorshaha ayaa la sheegay inay qayb ka mid ah lagu damacsanaa weerar ka dhinaca saldhigga militari si loo abuuro kacdeen horseeda in ugu dambeyn xilka laga tuuro madaxweynaha. warbixin ay AB soo saartay Jimcihii ayaa lagu sheegay inay heleen caddayn muujinaysa in dowladda Mareykanka ay qorshahan ku lug leedahay. wakaaladda ayaa intaa ku dartay in Mr. Ganduru uu diiradda saaray arrimaha Venezuela bishii February ee sanadkii 2019 kadib markii uu shaqo ka bilaabay hay-ad amniga sugta oo ka shaqeysa xadka u dhexeeya Colombia iyo Venezuela, taasoo uu aasaasay bilyaneer u dhashay UK oo lagu magacaabo Richard Branson, sidoo kalena uu dhaqaale ku taageero hogaamiyaha mucaaradka ah Venezuela Juan Guaido. Mr. Ganduru ayaa sidoo kale sheegay in howlgallo dilal ah la fuliyay. Mr. Guaido oo ay in ka badan 50 wadan u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha Venezuela sharciga ah. maalintii Isniintii Mr. Guaido wuxuu dafiray inuu wax shaqo ah la qabtay sarkaalka howlgabka ah ee militariga. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay inuusan xiriir la lahayn mas-uulna ka ahayn wax ficil sharci darro oo uu fuliyay rugcadaaga militariga Mareykanka. dhinaca kale wuxuu maamulka madaxweyne Maduro ku eedeeyay inay isku dayayaan sidii shacabka indhahooda looga jeedin lahaa qalalaasihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Venezuela, kaasi oo dhiig badan uu ku daatay.